ويل للأعقاب من النار عربو وحا أسقناضي هلاك نار رواه البخاري ومسلم. حديث كان وحولها قصدان النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب تيسا أيا وحي كسو سفرين مكة وحين أسعدين مدينة. النبي صلى الله عليه وسلم حوغابو كدن بيي صحابة oo way ka degdegeen. waxaa la gaaray salaadii casarka biyo lama haynin, saxaabadii waxay raadiyeen biyo. xilli ay salaada waqtigeedii tagi rabtay ayay biyihii heleen. waxay bilaabeen inay u weyse qaataan si degdeg ah, lugaha ayay masaxeen ayadoo qof uusan ugu jirin. nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa soo gaaray ayagoo lugaha masaxaya. markaa ayuu u dhawaaqay, wuxuu yiri cirbo waxaa u sugnaaday halaag naar ah. waxaa laga qaadanayaa xadiidka in lagu xeel dheeraado weysada, in biyaha la gaarsiiyo xubnaha weysada oo dhan, in dadka la faro wanaaga xumahana laga reebo, in wax la baro qofka jaahilka ah.